waxaan wali ku guda jirnaa caleemasaarkii Cusmaan Cumar Dool ee xiriiriyaha North America iyo Europe qaarada Europe markaa ay makana gudoomiyay xisbiga wadani ee Norway ayaanu nasiib u yeelanay isaga inaan su'aalo ka weydiino sida uu arkayo caleemasaarka iyo guud ahaan intii xilka hayay xisbiga wadani ee qaybta Norway sidii mataqaana wuxuu ugu qabsoomeen iyo xaaladda ay ku sugantay marka hore waxaan soo dhaweynaa Xuseen Iid Aadan Yuusuf Xuseen soo dhaw hadsan doollar raxmaad iyo banluwi sidee baad u arkaysaa Xuseen Iidow caleemasaarka maanta caleemasaare Cusmaan Cumar Dool oo loo magacaabay inuu noqdo xiriiriyaha North America iyo qaarada Europe runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaa walaalkay Cusmaan Cumar Dool wuxuu ahaa shakhs aad u active markii horeba xisbiga maaragtay door weyn ka ciyaarayay maanta haddii isagoo ka tirsaneen xubnaha Norway active ka xilka loo magacaabay aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa aad baan uga mahadcelinaa xisbigana inay Cusmaan maaragtay nagu soo xoojiyeen oo qaarada Europe iyo America uu xiriirin doono insha Allah waana ninka soo bixi doono xilka aad iyo aad ma santay waxa rabaa oo kale inaan ku weydiiyo xilligii lagu magacaabay xilkan gudoomiyaha waynagii waraysi hore ku soo qaadanay in hore soo aragnay muddo hadda ka soo wareegtay maxaa ku qabsoomay maxaa qabyo ku ah sidee bay xaaladdu tahay guud ahaan xisbiga iyo qaybta wadanka Norway runtii xisbiga halka Norway sidii markii aanu bilaabaynay iyo sida maanta uu yahay wax badan oo isbedel baa jira xaqiiqatan waxa ugu muhiimsan weeyaan xisbigu inuu dadkii xisbiga sidii markii hore aynu waraysigii hore ku sheegnay inay dadkii xisbiga ka irdhoobeynaanu dib ugu soo celino arintana aad baan ugu guuleysanay xubnaha iyagii dib baan ula soo noqonay iminka waxaan rajaynaynaa inaanu maaragtay sii ballaadhino oo maaragtay xaaladda dalka ka jirta ee kala guurka ah ee jiqda ah awgeed inaanu uga faa'iidaysano inaanu u yeedhno weliba iminkana inaanu u talowno xubnihii kale xisbiga kulmiye oo taageerayaashiisa inaanu xisbiga ku soo dhaweyno sidii markii hore baan u sheegay marka waxaanu gaadhnay iminka marxaladii ahayd inaanu faceka labaad u gudubno oo ahayd inaanu maaragtay ku soo dhaweyno xubnaha xisbiga kulmiye insha Allah ayaan u gudubnay insha Allah taana waan ku guuleysan doonaa insha Allah hadii la yiraahdo marxaladaasna waxay ka tarjumaysaa in wadankeena halku maraayo iyo xaaladda xisbigii kulmiye sidaan u sheegay markii dhaweyd jarka la dhacaad waxaynu la soconaa hadda wadankii waxa la filayay in doorasho ka dhacdo kolley adayga dhuun daloola doorashadii hadda may dhicin maxaa xisbi ahaan iyo waliba adiga gudoomiye ahaan marka aad Norway joogto kaaga haboon ee samayn kartaa maxaad se filaysaa in wajiga xiga aad kala kulmi doontaan dawladda iyo dalkaba aad iyo aad baad mahadsantahay runtii su'aal fiican weeyaan horta xaaladda wadankii ayuumaan anagu ku xidhannahay xaaladda wadankiina dee waa jiq wada aragtaan madaxweyne wuxuu isagaa jiq iskaga dhigay meel walba isku soo xidhay siduu islahaa maaragtay iska celiyo oo cadaadi dee qof wadanka dhan hogaamiye loo doortayna maanta maaha gudoomiyaha kulmiye maanta waa madaxweynihii qarankuna waxay ahayd inuu ummadda isu soo jiido oo xisbiyada isu soo jiido oo doorashada isagu qabto mas-uuliyadda ugu weyn isagaa lahaa dee halkuu la galayna waynu ognay maanta wax walba diiday oo ilaa 3 jeer maaragtay dee xisbigeegu uu tanaasulay laakiin markani waa markii ugu dambeysay waxaana dee gaadhay inaan anaku markan tanaasulahayn aad baan uga xunahay arrinta madaxweynuhuna gaarsiiyey ee ah inay dad kale inay dibadda inooga yimaadaan oo marxalado aynu beriyo hore ka gudubnay inaynu dib ugu noqono waa arrin aad iyo aad looga xishoodo laakiin wixii laga xishoonayay haddii uu qofkii dhinaaye awoodda gacanta ku hayay aanu maaragtay sharcigii isagu uu gacanta ku qaato uu jeebkiisa gashaday dee anagu wax kaloo aanu samayn karna ma jirto anagu inaanu shacbigii maaragtay dee u sheegno taageerayaasheeda u sheegno mudaharaad baanu samaynay gudaha ka samaynay halkana waanu ka samaynaynaa waanu cambaaraynaynaa waxaan leenahay xisbigeega ma tanaasuli kartaan waanu u sheegaynaa xisbigeeguna ma tanaasuli karo way naga dhamaatay hadduu isagu tanaasulaya isaga u taallaa haddii uu dalka meel kala geynayana dee isaga u taallaa isagay ku jirtaa maaragtay gacantiisa waayo baarlamankii wuu baabiyey baarlamaan ma jiro dalka gurti ma jirto maxkamado ma jiraan wuxuu noqday dalkii wuxuu qof quraatay shakhsi quraatay uu gacanta ku sito ana waxaan leenahay meesha doonta kala dhacdaad wixiiba gacantaada aad ku qaadatay biyaan la oran karin
faqaran weeye inay beesha dhexe oo kaliya sidii kubadii la oran jiray tennis ballka la isu tuurtuuro oo maalin walba laba beesha dhexe ama afar beesha dhexe wasiiro loogu yeedho oo iyada oo ummadii kale iyo dadkii kale dalkeena la deganaa dalka lahaa ilaa dalka beesha dhexe oo kaliya ma laha Soomaaliland ay indhaha ku daawanayaan oo magacooda iyo mid aan la soo qaadahayn in loolan sidii kubadii uu dhex taagnaado beesha dhexe miyay faqaranahay ما هو تهرمت حقيقة ويان هرتا حسبية بيلا معها حسبية واحد لو سمين بيلاها لك قبح لكن سو واحد مدة كل مية إنه وجبجي سبوحة وقراته وكحريف كيه ما هدل هو مرينتيس إنك شلي عجلت بيصوت وين فيديو أو ضد كي يردنا إلى يابان وحي كوسو مدحوينها ضافي أي كده وحقبة أوكي مدحوينه ضافي لكن سمحوا لي محو صحيحي maxaa maartay hanti dalka ku soo noqotay maxay ummadani ka faa'iiday ilaa madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka laakiin madaxweynaha dhoofay hebel baa gaari raacay hebel baa diyaarad raacay maha wax qabad marka arinta beesha dhexe ay ku soo ururtayna waxa looga baahnaa maamulka dalku maamul bulay san hore u sheegayna baarlamankii iyo guurtidii faraha waxay ka baxeen meesha iyo maartay maxkamadiiba wixii waxay noqdeen wax madaxtooyada taabacsan arrin aad iyo aad looga naxwayaan markii waxaas oo dhan ay noqdeen booliska uu noqday wax taageersan madaxtooyada maxkamadda ay noqotay wax taageersan madaxtooyada baarlamaanka uu noqday wax taageersan madaxtooyada yani maxaa beelba ma jirto wax weeyaan waxay ku soo ururtay aan waxaan oran karaa waa beel dhexba maahe waa hal shakhsi bay ku ururtay marka raalli noqo su'aashaan ku weydiin waxa weeye haddii aad sidaa u dhigtay horta ma oran karno kulmiye ama dawladda maanta dhisan ayaa dalka qalaalaasaha iyo dhibaatada iyo buuqa taagan iyadoo kaliya ayaa wada ama iyadoo kaliya xalin karta haddii runta aan laga gabanayna meesha beelo ayaa wax la isku siiyaa qaar shalay to wadani joogayba maanta xilal culus lagu casuumay oo mataqaana halkaas cabada looga tumaayay ma waxaad oran kartaa marka dhib kasto oo maanta Soomaaliland ka taagan khaasatan beesha dhexe sameynayso ma kulmiye dusha ka saaraysa ما هرتا حلك قرن مركز الله مقعده dadkeenu si qaldan bay u turjumaan horta qofka xilka sidiisaba markaad xil xisbi hayso xil qaran ma haysid xil xisbi baad haysaa marka waxa lagu magacaabay inaad xisbi xoojiso xil qaran maaha laakiinse marka xukuumadda lagu magacaabo qaranka ka dhaxaysa kaasa xilka qaran la yiraahdo laakiin anagu imika waxaanu nahay shadow baanu nahay oo waxaanu u dhiganaa iyaka kuwooga la dhigma ee xukuumadda ka yimaada ama xisbiga kulmiye ayaanu u dhiganaa marka haddii qof laga doorto maaragtay xisbiga wadaniya laga doorto oo la geeyo maaragtay xukuumadda ku biiro haddii ay iyagu u arkeen inuu wax u taraayo qaranka wax dhibaato ma leh laakiinse waxa muhiimadda mushkiladdu waxay tahay maaha qofka la doortay ee systemka lagu shaqaynayo ayaa ah qofka la doortay in reer hebel loo doorto oo hadhowna reer hebel lagu garaaco ayuun baa dadka loo doortay yani waa waxa aad iyo aad u faalxun oo maaragtay ka baxsan systemka dawladnimada runtii waana dhaqan aad u xun sidee ku dhici kartaa qof mabda'a xisbiga matalan xisbiga xaafidka aaminsanay oo ka soo horjeeda oo in badan shaashadaha ku dhaleecaynaya in xil marka la siiyo uu haddana uu noqdo muxaafid uu noqdo kii isagu u doodayay ma oran karnaa wadani oo dhan maanta haddii xil la siiyo in ay buuq iyo qaylada joojin doonaano uu khadkaba ka bixi doono xisbiga runtii waa arrin aad iyo aad su-aal aad iyo aad u fiican horta dadka dalka waxaad u moodaa in aanay fahansanayn ba xisbiyadu waxay yihiin iminka Norway xisbigan SV ama xisbiga Arbeider Party ana sabir waa dhici kartaa inay u magacawdo xil laakiinse inta badan way ka cudur daartaan yani maadaama oo sida aad sheegtay aynay xisbiga xaakimka aynay isku mabda ahayn laakiin wadankeena ma jirto horta dhibaatada taaganba waa dhibaatada hore ka soo hadashay oo qofka markiisa horeba wuxuu iska eegtaa uun inta badan dadku waxay u badan yihiin dad jaga ku suga haddii markaa jagadii ay ka helaan halka kalena waxay ku leeyihiin laa maana anigu waxba kama gelin maalinta dambe intuu halkaa kasoo jeesto ayuu adigii kula dhacaya marka mabda la-aanta dadka ayay kamid tahay runtii oo markaa ma oran karna adiga laftarkaagu jaga ku sug baa tahay bacdamood kamid tahay xubin oo aan la oran karno siyaasi waxa tahay kuwa kamid ah bas adigu waxa leedahay in alla inta kaleba waxbaan dheerahayo mabda baan ku socdaa ee ma yihi jaga sugay maya runtii horta xilka qaran waa wax loo siman yahay saan horeba u sheegay laakiinse anigu maadaama wadanka Norway xisbiyadeeda ku jiroon kamid ahaa oo ilaa imkana kamid ahay
haddii aniga maanta xilli ay dooran lahaa runtii waan ka cudur daaran lahaa waayo ma aaminsani mabda'a kulmiye ee ah qaybi oo maaragtay kaalayo oo reerkiina ku garaac ma aaminsani waxaan aaminsanahay wax ummaddu leedahay oo ummadda haddii xisbiga kulmiye sagaajiyo oo wax ummaddu maaragtay ummadda Somaliland oo dhan minbar ilaa galbeed ka dhaxeeya meesha lagu hayo de qofba ma diideen oo qaranka in loo wada shaqeeyo laakiin meeshan qaran looma shaqeeyo jeeb baa loo shaqeystaa anigu Norway waan shaqeystaa weligay intaan Norway joogo waan shaqeysanayay lacagta ay helaan wasiiradooduna lacag ka badan ma qaata maxaan ku falayaa xilkooda iska haysta runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaligan ma siisay waxaan rajaynayaa in xafladii sii socoto caleemasaarkeeda dabaldegi kusoo jirtaan waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay mar labaad baan ku leeyahay dana aad iyo aad ugu mahadsan tahay halkaa waxaan kusoo gabagabaynay waraysigii aanu ka qaadnay Xuseen Iid oo ah gudoomiyaha dalka Norway ee xusbiga wadani iyo anigoo Raxma Maxamed Jaamac farsamada Jamaal Axmed waxaan idin leenahay tan iyo kulantina dambe sidaas iyo amaanaha